waxa jira muxuuha African Development Bank donors ku inay lacag soo mariyeen lacagtaas oo Soomaaliya oo dhan loogu talagalay dawladda dhexe la qaybiso lacagtaas waa lacag aad fara badan waa bilyan meel ay sugu yimid ay ka ogolaatay in dawladda la qaybiyaan ma jirto waxaan halka hadda hayaa oo tusaale idin siin karayaa qayb ka mid ah lacagtaas waxa loo qaybiyay 6 sector horumarinta Soomaaliya hadda 6 sector baa laga dhigay infrastructure ko dhan la isu geeyay meel baa laga dhigay oo dekadihii iyo wadooyinkii iyo airportadii waxaas social maxaan ku services caafimaadka tacliinta mid baa laga dhigay governance mid baa laga dhigay yani 6 sector baa loo qaybiyay lacagta 6 sector in loo qaybiyo baa qorshaysan waxaan anigu hadda hayaa xoogaa loo hay infrastructure sectorka infrastructure-ka kaabayaasha dagaala ah qorshaha 5 sano soo socda 2019 2023 5 sano qorshaha African Development Bank lacagta uu Soomaaliya siiyay ee dawladda dhexe loo dhiibay baan doonayaa inaad idinka siiyo sida ay u qaybisay loo dhiibi doono tafaasiil waa loo dhiibay wala approve garay shirkeed loo dhiibay mise loo dhiibi doono hadda qorshaheedii la finalize gareeyay way waxaan rabaa fursad ku siinayaa andamayo lacagta qiimaheedu totalkeedu waxa weeyaan 1 bilyan 137 milyan iyo 700 kun baa loogu talagalay infrastructure-ka Soomaaliya oo dhan okay dawladda gacanta loo gelinayaa way qaybisay sidoo qaybisay marka doonayna wax ka tuso oo keentay in khilaafkan uu yahay saldhig noqdo oo la kala fogaado oo xiriirka xataa uu gaaro heerka la socotaan lacagta 1 bilyan iyo 137 milyan iyo 700 kun ah laba ay u qaybiyaan dawladii dhexe iyadoo ciidana ka talagelin 693 milyan waxay u qoondeeyeen wadooyinka sectorska kale 444.7 milyan ayay bay u qoondeeyeen qorshaha ay soo saareen 693 milyan ee wadooyinka sida ay u qaybiyeen baan wax idinka tusaya 693 kamida waxay yiraahdeen waa capacity building waa kormeer waa anaga ah no problem 670 milyan oo wadooyinka ba soo haray way qaybiyeen iyagoon cidna kala tashan waxay u qaybiyeen sida soo socota Puntland 670 ka 2 milyan bay ka siiyeen 670 milyan oo wadooyinka 2 milyan baa Puntland laga siiyay 2 milyan sida uu qaybiyay adin khareeya wadada Muqdisho Afgooye Baydhaba Beled Xaawo 229 milyan baa loo qoondeeyay wadada Muqdisho Balcad Jawhar Beledweyne Gaalkacyo 153 milyan baa loo qorsheeyay wadada Muqdisho Marka Kismaayo Liboy 202 milyan baa loo qorsheeyay wadada Berbera Addis Ababa corridor waxa loo qoondeeyay 65 milyan mar labaad waxa lagu soo noqday hadana rehabilitation-ka wadada Hargeysa Kalabayd 4 milyan baa loo qoondeeyay 0.5 waxay soo noqonaysaa 70 milyan wadada Gaalkacay wadada Ribeerka ama dib u habaynta wadada Hobyo Gaalkacyo Dagaari Bandiirada Ethiopia 8 milyan waa galmudug wadada Gaalkacyo Galdogob waxa loo qoondeeyay 2 milyan 2 milyan 670 ka waxa Puntland loo qoondeeyay 2 milyan waayahay waxaan rabaa marka in la gogosto marka percent loo eego waxa weeyaan 670 ka marka 1000 meelood loo qaybiyo 3 meelood baa laga siiyay Puntland dekadaha lacag baa loo qoondeeyay waxa la soo qoray lacagta loo qoondeeyay dekadu waxa weeyaan
6 milyan oo ballaarin ah iyo maxaan ku raay dib u habayn Kismaayo upgrading Kismaayo Mogadisho Port upgrading Mogadisho Port labadaas lagu soo koobay boosaaso waa laga tagay